إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق. ألبير سلان waxa waa mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu caansanaa muslimiinta, hogaamiye kaga xusan taariikhda baal dahabi ah. waxa uu soo hooyay guul ilaa hadda looga dabaaldego dalka Turkiga. waa guushuu ka soo hooyay macrakadii Malazikar. waxa ugu caanbaxay magaca Alper Salan, waa magac Turki ah macnihiisuna yahay dagaalyahankii libaaxa ahaa. waxa waa boqorkii afraad ee soo mara dowladda Seljuuqiyadda. waxaa lagu naanaysi jiray suldaankii dunida ama boqorkii cadaaladda badnaa. waxa uu maamulkiisu gaadhay qaybo ka mid ah Aasiyada Dhexe ilaa dhulka Shaam meeshiisa ugu dambaysa. saasoo taana waxa uu raacsanaa ama uu hoos tegi jiray khilaafada Cabbaasiyada ee saldhiggeedu Baqdaad ahaa. haddaba si aynu uga boganno hogaamiyahaas taariikhda dahabiga leh dhamayso muuqaalkan. halkani waa Halgan Media, magacayguna waa Axmed Maxamed. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. هلال الخير والإحسان لشهر الصوم والقرآن تنادينا ينادينا لخير قد أتى رمضان، لخير قد أتى رمضان. السلام عليكم. magaciisa oo dhammaystiran waxaa la yidhaahaa Maxamed bin Shaqri Beek Daawud bin Mikaa'iil bin Saljuuq bin Duqaaqa Turkumani. waxa uu dhashay 15 Diseembar 1920 miilaadiga. waxa waa boqorkii afraad ee soo mara dowladda Seljuuqiyadda. waxa wasiir u ahaa wasiir taariikhda ku xusan oo la odhan jiray nidaam al-mulk. dowladdu uu xukuman jiray Alper Salan waxay taageero weyn u muujisay khilaafada Cabbaasiyada. waxay dhow jir ka badbaadisay xukuumadihii Shiicada oo dowlado waaweyn ka agdhistay khilaafada Islaamka. Alper Salan waxa uu babacdhigay laba qolo Shiicada ka mid ah sida Buwayhiyiinta oo ka tarin jiray Iiraan ilaa Ciraaq. waxaa la sheegay qoladaasi inay Baqdaad oo caasimadii khilaafada ahayd iyo khaliifkaba kor ka maamuli jireen. qolada kalena waxay ahayd kuwa isku magacaabay khilaaf al-Cubeydiyya ama Faadimiyiintii oo iyaguna saldhigtay Misr iyo Shaam. Alper Salan wuxuu la wareegay xukunka dowladda Seljuuqiyadda bishii Ramadaan 8-deedii sanadii 450 Hijriga. Alper Salan waxa uu dhaxlay dowlad baaxad weyn oo ku fadhiday laga soo bilaabo buuraleyda Turkistan ilaa meesha uu gaadho webiga Dajla, yacni Turkiga qaybteeda bari, Suuriya ilaa Ciraaq. markii uu qabsaday xilka waxa uu la kulmay gadood ka dhan ah oo ay dabada ka riixayeen qaraabadiisu kowna ka ahaayeen walaalkii iyo adeerkii. si loo damiyey fitnada waxaa laga maarmaan noqotay in lala dagaalamo khilaaf abuurayaasha uuna ka guulaystay Alper Salan. haddana waxaa kacay dab kale oo uu hurinayay wasiirkii adeerkii ee uu dowladda ka dhaxlay Toghrul Beek oo xukunka la doonayay Alper Salan walaalkii oo ahaa wiil yar oo markaas qaangaadhay. sidoo kale khilaafkaasina uu damiyey. markuu ka adkaaday khilaafaadkii gudaha wuxuu u kacay ballaarinta dowladdiisa iyo la dagaalanka dowladihii Kiristanka ahaa. wuxuu doonayay inuu ummadda Islaamka dhammaantood ku mideeyo khilaafadii Cabbaasiyada hoosteeda. waxa uu ku duulay Georgia iyo Armenia uuna qabsaday. kadib waxa uu kaga tegay niman ducaad ah oo ku sifaafiyey diinta Islaamka. sidoo kale waxa uu ku duulay waqooyiga Shaam isagoo oo go'doomiyey dowladdii Mirdaasiyadda ee uu aasaasay Saalix bin Mirdaas. waxay ahayd dowlad ku taagnayd madhabkii Shiicada, wuxuuna ku khasbay amiirkeedii inuu isu dhiibo khilaafadii Cabbaasiyiinta, sidoo kale inuu u beddelo siyaasadaheeda iyo dhaqankeedaba madhabka Sunniga ah. kadib wuxuu u diray mid ka mid ah hogaamiyaashiisii oo lagu magacaabi jiray Athanasius bin Awq al-Khawarizmi inuu duulaan ku qaado koonfurta Shaam. wuxuu qabsaday qaybo ka mid ah dhulka Filistiin oo hoos tegi jiray dowladdii Faadimiyiinta. waxaa xusid mudan inuu Alper Salan gacanta ku dhigay dhul aad u ballaaran oo koobsaday Shaam, Ciraaq, Georgia, Armenia, kuwaas oo dhammaantood ku hareereysnaa dowladdii Bisantiyiinta oo uu u arkay boqorkii Bisantiyiintu Romaanoskii afraad inay tahay carayn iyo gardaraysi. waana meesha uu ka dhashay dagaalkii caanka ahaa ee Malazikar. dowladdii Bisantiyiintu waxay isu taqaanay albaabka caalamka Kiristanka ka horjooga fidinta Islaamka iyo dagaalyahanada ugu geysan Kiristanka. waxa uu diyaariyey boqorkii Bisantiyiintu ciidan isugu jira Roomaan, Ruush, Khasar, Faransiis iyo Bulgaariyaan. dhammaantood waa ciidamo Kiristan ah. isugeed tiradooda waxaa lagu qiyaasaa inay ahaayeen 300,000 oo dagaalyahan. waxay isugu yimaadeen ciidankaasi magaaladii Qustantiniya. hadafkoodu waxa uu ahaa inay cagta mariyaan dowladihii Islaamka oo ay ugu horeysay dowladdii Seljuuqiyadda. waxay u soo jeesteen goobtii Malazikar oo ay muslimiintu ku sugnaayeen oo iyaguna tir ahaan dhammaa 15,000 oo askari. ka hor intaanu dagaalku dhicin
waxauu suldaanku boqorkii Roomaanka ka dalbay heshiisyo waanwaan, laakiin boqorkii Bisantiyiinta Romanos Diagonos oo sanka taagayay ayaa diiday. Suldaan Alba Arsalaan waxa uu dhigay khudad iyo xeelad cajiib ah, wuxuuna ku huriyey qulubta ciidankii muslimiinta xamaasad. Wuxuu soo xidhay dhar cad, wuxuuna dibka u laabay oo u xidhay faraskiisii, taasoo ka dhignayd inaanay soo noqosho jirin. Wuxuu jeediyey hadal taariikhda galay, wuxuuna yidhi, waxaan dagaalamayaa anigoo sabar iyo ajar xisaabsanaya. Haddaynu guulaysanno waa nimco dhanka Alle inooga timi, haddaan shahiidana waa taa kafantaydii. Ninkii doonaya inuu hadho cidi qasbi mayso ee iska tago. ninkii shahaado u xiise qabaana adigii shahaadada waxa idinka dhex xigayay waa daqiiqado. war maanta suldaan iyo boqortoona idima yihi waxaan hay fardi ciidanka ka mid a 15 kun dhammaantood waxay doorteen shahaado iyo inay ka hor istaagaan bisandiyiinta kiristanka ah ee ku soo duulay islaamka. waxayna u labisteen sidii suldaankooda u labistay iyo qaabkii uu faraskiisa dibka uga xidhay oo kale. tiriya cudbaxo matalaane waxaad arkaysaa in meesha lagu dabaqayo mid ka mid ah sunnooyinka ilaahay oo ah kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kasiira. imsaa ciidan yari ka guulaystay ciidan ka awood iyo cudud weyn. muhiimaddu inaad alla ku xidhan tahay yaqiinsan tahayna guushiisa. waxaa la istaray foodda, waxaa isdhaafay seefihii, waxaa cirka isku shareeray dhawaaqa dagaalyahanada. waxay muslimiintu gaashaanka u daruureen ciidankii gaalada oo ay jabiyeen. markii la kala baxay waxaa ku jiray ciidamadii lasoo qafaashay boqorkii bisantiyiinta Romanos Diagonos. markii lasoo qabtay waxa uu suldaan Alba Arsalaan qoorta ka saaray kabtiisii, waxaana dhex martay wada sheekaysta taariikhda lagu xusay. suldaan Alba Arsalaan wuxuu ku yidhi boqorkii, ka waran haddaad aniga soo qafaalan lahayd maxaad igu samayn lahayd? boqorkii ayaa yidhi, waan ku dili lahaa ama laamiyada Qustandiiniya ayaan kugu jiidi lahaa. suldaan Alba Arsalaan ayaa yidhi, anigu waxaan kugu samaynayaa taa mid ka xun, waan ku cafin waana ku sii dayn. waxay ka dhignayd haddii boqor dagaal lagu jabiyo kadib gacanta lagu dhigo oo la soo daayo sharaftiisa inay dhulka ku xaaqantay. laakiin Alba Arsalaan sii deynta boqorka maslaxado kale ayaa ugu jiray. waxa uu ogaa haddii uu dilo inaanay waxba u tarayn, haddii uu haystana in nimankii jabay ay dib isu soo bahaysanayaan si ay boqorkooda u badbaadsadaan. waxa uu ku shardiyey inuu soo daayo dhammaan maxaabiista muslimiinta ah ee ay haystaan ciidamada Roomaanku, sidoo kale inuu soo diro ciidamadiisa wakhtiga loo baahdo, naftiisana uu ku furto 1.5 milyan oo diinaar. taa waxaa dheerayd inuu la socday suldaan Alba Arsalaan heshiis muddadiisu tahay 50 sano inaanay ku soo duurin dowladaha islaamka. waxa uu dhintay 10 Rabiicul Awwal sanadii 460 hijriga. waxaa dilay mid ka mid ah raggii ku kacsanaa oo lagu magacaabi jiray Yuusuf al-Khawaarsimi. guud ahaan intaas waa muuqaalkeennii maanta. intaynu dib u kulmi doonno muuqaal kale oo xiiso leh. sidaa iyo assalaamu calaykum.